kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah Xuseen Macalin oo soo jeediyay in farmaajo ee kheyr la maxkamadeeyo sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan nabad iyo nolol oo looga adkaaday Muqdisho balse maanta heshay guul kale Cabdi Xaashe oo sheegay ballan uu uga baxay madaxweyne farmaajo sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay Xuseen Macalin ayaa soo jeediyay in farmaajo iyo kheyr la maxkamadeeyo la taliyay hore ee amniga qaranka Xuseen Macalin Maxamuud oo hadda ah agaasimaha macadka daraasaadka amniga ee lagu magacaabo Hiraal ayaa soo jeediyay in kiiska Owen la fi qalbi dhagaxan intaan looga gudbin Xuseen Macalin waxa uu ku taliyay in lagu maxkamadeeyo raggii hogaaminayay dawladii qalbi dhagax u gacan gelisay Itoobiya sidoo kalena u gaftay ururka xaquudirirka ah ee ONLF xukuumadii go'aankaas gaartay iyo madaxweynaheedii xilligaas waa waayeen wax qiil ah oo markaasi ay la soo shirtagaan sababta dadkii hawshaasi ka dambeeyay ay ilaa hadda dadka u hor iman la yihiin waa culeyska ficilkii ay geysteen ayuu yiri Xuseen Macalin agaasime Xuseen ayaa farmaajo kheyr iyo ragii kale ee hawshaasi kula jiray waxa uu kula taliyay inay toobad keenaan oo ay u hoydaan muwaadiniintii ay ku dhibaateeyeen shaatiga dawladnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ku dhawaad 5 sano ayay arintan la murugeysnaayeen marka hadda waxa ay daneynayaan in markaasi ay ogaadaan sababtii idinku qasabtay go'aankaas waxaan ogaataan in qof xadgudub geystay uu markaasi ku fakan doonin waxaan ku talinayaa in hawshan aysan intaan ku dhaman ayuu hadalkiisa ku sii gabagabeeyay Xuseen Macalin ayaa soo jeediyay in raggii dhiibay qalbi dhagax ee ONLF argagixisada ku shaabadeeyay aan laga harin ilaa intay cafis ka dalbanayaan amaba sharciga laga horgeenayo oo lagu maxkamadeynayo qaladkaas sida uu hadalku dhigay tallaabada roob la qaaday waxaan rajeynayaa in kiiskan aysan soo xirin si jariimooyinka soo socda aan markaasi uga amaan helno cashirna ay noogu noqoto ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay agaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Xuseen Macalin dhinaca kalena nabad iyo nolol ayaa looga adkaaday Muqdisho balse maanta waxa ay heleen guul kale doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya maanta waxay ka dhacday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ka dhacay doorashada ilaa iyo kuraas badan oo kamid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho doorashada xubnaha golaha shacabka lagu doortay ayaa waxa ay yihiin doorashadooda xubnaha golaha gobolada waqooyi ka soo galaya golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoona deegaanada koonfur galbeedna lagu dooranayo xubno cusub oo baarlamaanka 11aad ee baarlamaanka Soomaaliya kamid noqonaya doorashada maanta lagu qabtay Muqdisho oo xubno kala duwan ay ku soo bixeen waxa kamid ah xubnaha soo baxay Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo gobolada waqooyi ee Somaliland ka soo baxay oo ku guuleystay kursiga Hob 215 waxa sidoo kale Hob 214 isla deegaanada Somaliland oo gobolada waqooyi ah ka soo baxay Cilmi Maxamuud Nuur xubnaha maanta la doortay waxa kamid ah Maxamed Jaamac Mursal Isaaq Maxamed Mursal ayaa sidoo kale la doortay Cabdiraxmaan Axmed Suge Qatra Maxamuud Raage ayaa kamid ah xubnaha soo baxay sidoo kale Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hob 201 ee golaha shacabka oo doorashadiisa maanta ay ka qabsoomtay magaalada Muqdisho waxaana kursigaas hore ugu fadhiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib waxa lagu xasuustaa dhawaan hadal kulan oo ugu jawaabayay xubno uu kamid yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo eedeyn xoogan kala dul dhacay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble balse Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib ayaa si adag u difaacay dhaliilna u jeediyay xubnahaasi hadalada kala duwan iyo waliba warar gaf ku ah ra'iisul wasaarahana sheegay in ay jeediyeen balse isaga ayaa ka raali geliyay sidoo kale xubnaha beesha caalamka luqad adag kula hadlay oo uu sheegay in raggaasi ay qas ay wadaan oo loo aqoonsado qaswadayaal sida hadalku dhigay sidoo kale doorashooyin ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana ka soo baxay xildhibaano oo watay sida la sheegay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Leftigreen oo codkooda xilligan ay u xisaabsan yihiin marka la fiiriyo nabad iyo nolol waa dawladda madaxweyne Farmaajo doorashada golaha shacabka ayaa sida laga digayay hadda u muuqata mid boob ah marka la eego shakhsiyaadka ay wadatay nabad iyo nolol
oo ay markaan ka xoog bateen Dani iyo Madoobe kuwa ay soo saarteen iyo xildhibaanada Rooble xaggiisa ka imaanaya ee gobolada waqooyi ka soo baxay. Dhanka kale Cabdi Xaashi waxa uu sheegay ballan uu kaga baxay madaxweyne Farmaajo. Gudoomiyihii hore ee aqalka sare baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa waxa uu ka hadlay go'aankii ka soo baxay xukuumadda Rooble ee la xiriiray ONLF iyo qalbi dhagax isagoo sheegay in Farmaajo uu markii la dhiibay qalbi dhagax uga baxay ballan uu ka qaaday oo ahayd inaanu dhiibi doonin sida uu hadalku dhigay. Cabdi Xaashi waxa uu sheegay inuu aad ugu farxay go'aanka xukuumadda Rooble kaas oo sida uu sheegay muddo dheer ku taamayay marar badanna uu ku taliyay amba kula taliyay madaxdii hore. Cabdi Xaashi waxa uu aad kaga mahadceliyay ra'iisul wasaare Rooble iyo golihiisa wasiirada. Waxa uu tilmaamay waxaad saxdeen dembi horey u dhacay oo dowladii Farmaajo iyo madaxda ka ahaa ay gashay kaas oo ahaa in la dhiibo Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo aan dalkiisa ka gelin wax dembi ah sida uu hadalku dhigay. Sidoo kalena ururka ONLF oo u dagaalama xorriyadda Soomaalida dulman ee la heestana ku sifeeyay urur argagixiso ayuu yiri Cabdi Xaashi. sidoo kale Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxa uu sheegay in go'aanka xilligaasi ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay qalbi dhagax iyo ONLF uu aad uga naxay wixii tabarteeda ahaa waan ka geystay waxaan soo jeediyay talooyin badan laakiin cidina igama hoos qaadin ayuu yiri. Gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu intaasi ku sii daray in go'aankii ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta uu farxad weyn geliyay kaas oo meesha ka saaray gafkii ay geysatay dowladii Farmaajo sida uu hadalku dhigay. Waxa uu tilmaamay ra'iisul wasaare Rooble iyo xukuumaddiisa arrintaasi ay ku mahadsan yihiin. Waxa xusid mudan in maalmo ka hor Cabdi Xaashi uu ka mid ahaa xubno ka soo jeeda gobolada waqooyi oo si adag u eedeeyay ra'iisul wasaare Rooble oo sida ay sheegeen ay doorasho isku hayaan balse sida muuqata taasi kama hor istaagin Rooble iyo xukuumaddiisa inuu kaga mahadceliyo go'aankii ay ku saxeen qaladkii laga galay qalbi dhagax iyo ONLF. Horay gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka ballan qaaday in qalbi dhagax aan loo dhiibi doonin Itoobiya habeenkii ka horreeyay maalinkii la dhiibay balse ay soo baxday in muwaadinkaas la dhiibay. Cabdi Xaashi waxa uu sheegay in wixii maalinkaasi ka dambeeyay uu aad u sii nacay madaxweyne Farmaajo. dhanka kalena ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay ayaa waxa ay gaareen magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Abiy Ahmed iyo wafdiga la socday waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo u hortagay garoonka diyaaradaha magaaladaasi. ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xubnaha la socday waxa ay booqan doonaan meelaha ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolkaasi iyo waliba dib u eegista howlaha gargaarka bini'aadanimo ee halkaasi ka socda. waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inta uu joogo dowlad deegaanka Soomaalida uu la kulmi doonaa madaxda maamulada dowlad deegaanka isaga oo kala hadli doona sida loo wajahayo abaaraha ka jira deegaanka. guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. waa ku mahadsantiin daawashada wararkeena ee nabadgelyo.